kusoo dhawow channelkayga Nahyan Cooking. waxaa ka heli kartaa cuntooyin kala duwan, isqurxin iyo waxyaabo kale badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta kusoo dhawaada channelkayga Nahyan Cooking. waxaan sameysanaynaa asxaabta cunka ciida sida dhuxusha loogu sameeyo ayaa idinkaga faa'iideynaya. sidoo kale haddii aad mashiin haysanin oo waxa lagu shiido waxyaabaha qalalan lagu shiido sida sokorta iyo heelka iyo waxyaabahaas lagu shiido haysanin, sida ugu fudud aad u diyaarsan karsid sokorta oo cunka lagu sameeyo waa idinkaga faa'iideynaya. waa aragtaan sokorti waxaan ku shubay mooyo waa tumay. waxaan marka hore soo diyaarsaday koob bur ah, nus koob oo sokor ah. koob ma ahan galaas waaye, galaaska biyaha lagu cabo oo bur ah, iyo galaas oo haafkiisa oo sokor ah, iyo galaas koob haafkiisa oo waxaan ku haystaa meeshan saliid ah. sokorta waa soo tumsada arkaysaan, sokorta iyo burka isku daray. waa isku qasayaa sokorta iyo burka. waxa koobka igu jiro waa saliid cuntada lagu kariyo waa saliid caday. waa isku qasayaa sida aragtaanba. haddii aad haysan oven ama koronto waxaa isticmaali kartaa dhuxusha, sida ugu fudud dhuxusha loogu karsan karo loogu duban karo cunka idinkaga faa'iideynaya. marka sokorta waa ujeedaan, sokorta iyo burka marka isku qasay kadib waxaan ku daray saliida ku qasaya. cunka saliida lagu qasaa, biyo laguma qaso. waa ila arki doontaan, waa arkaysaan sida aragtaanba. waan qasayaa saliida kaskasa ugu darsanaya. hal mar haddaa ku dartid waxaa laga yaabaa inuu kaa jilco, mar kaskas ugu soo darso insha Allah. waan qasayaa marka si fiican oo qasayaa, marka inaad si fiican isku dhex gelisid waaye. sokorta mooyahan kusoo tumay sida arkaysaan. ani wax yar la sameynaya idinkaga faa'iideynaya, laakiin anaga ciidan insha Allah macmacaanka isliya ka soo gadanaynaa because anaga koronto nooma imaanin weli. ovenka ma isticmaali karno koronto la'aan. marka sidaas darteeda cunka macmacaanka waxaan kasoo gadanaynaa isliya insha Allah. laakiin kista idinkaga faa'iideynaya saa usii samaysataan, inkastoo aan la soo daahay. marka ka faa'iideysta insha Allah. hadda waa qasaay cunka si fiican inaad isku dhex gelisid waaye. si fiican isku dhex gelinaya sida aragtaanba. si fiican isku dhex gelinaya. koob glass halfkiisa sokor ah iyo glass bur bis aan sameysanaya. haddaan isku kiilo sameynaysid laba glass oo bur ah iyo glass sokor ah ku sameysanaysaa. haddaa kiilo sameynaysidna 4 glass oo bur ah iyo 2 glass oo sokor ah. waxa hadda aan sameynayo wax yar leh waaye, idinkaga faa'iideynaya. waa kuskusaysaa saasaa dhahaysaa. haddii oo yani burka saas isku qabsamaayo diyaar waaye, waa kuskusee. haddii uu kala dadaadanayo, hadduu jilicsan yahay buraa ku daraysaa, hadduu adag yahayna saliida ku daraysaa. digsigana adag, digsigana ku sameynaya aan burjikada dhuxusha kula karinaya. digsi wax yar saliida marinaya si hodhow lacala waxaa laga yaabaa inuu ku dhego. marka wax yar saliida iska marinaya insha Allah. saliida mariyay sida aragtaanba. haddana burkaas oo kuskusanaya cunkan kuskusanaya. wax si yar ani u kuskusaya. hadhow hadii marka dabka la saaro wuxuu sameynayaa uu fidaya, uu weynaanaya. asaga ma fuuraya, qamiir ma lahan, laakiin uu fidsamaa, uu weynaana hadhowdi. marka waxaa laga yaabaa cariir inuu digsi ku noqdo. wax yar space oo kala fafagay wax yar. si yar oo kuskusaya. waa aragtaa hadhow asiga waa weynaanaya. ma fuuraya laakiin uu fidsamaa marka kuleylka arka dabka. waa soo wada kuskusaya sida aragtaanba. size-kaas ka dhigaya ama qiyaastaas. marka waan saaraya, waa soo wada saaray digsiga. hadda waxaan saaraya dabool, kadib dhuxulaan saaraya. inta waxaa iigu jiro food color cuntada caadiga isticmaalaya aniga. haddii aad haysatid food color oo macmacaanka loogu talagalay isticmaal, laakiin ani ma haysti.
intaana idinkaga faa'iideynaya waxa iska isticmaalaya food color oo cuntada bariiska iyo lagu darsado laakiin kan macaanida hadii aa heli kartid kaas isticmaal insha Allah kan waa dhanaan cusbo leeyahay food color hadii aa kaas heli karin xataa waxa sameyn kartaa cacao powder hadii aa haysatid saliid yar ku qasaysaa kadibna saas u marmarinaysaa yani tushtaas dhaxda ah dhibicdaas u sameynaysaa kulli sharaxaad leh waa hadii aa rabin waa ka dhaafi kartaa kulli saana soo wada marinaya waa soo wada mariyay asxaabta hadda daboolan saaraya kadib dhuxusha korka ugu soo shubaya daboolka dhuxusha ku soo guraya burjikada waa kaas cunka dab badan uma baahno dabka ka yaray insha Allah mid kale hoos burjikada inaad dabka ka dhameysid waaye kor leh dab badan u baahan hoos uma baahna dab badan burjikada marka dhuxusha ka dhamey waa arki doontaan sidaan ugu dhameynaya wax yar beenan ku soo reebaya marka hore dambasa soo saaray si digsiga daboolkiisa soo dhow u madoowaanin sidoo kale dambasta da kuleel tahayna daboolka ku sii kululeynaysa sidii foorna camal u noqonaya haddana dhuxushan soo saaraya dhuxushan soo wada saaraya waa soo wada saar asxaabteeda burjikada waa u jeedaan dhuxul kuma reebin wax yar beenan ku reebay sida aragtaan haddana waan saaraya digsiga burjikadan saaraya anoo soo bislaado markuu noo soo bislaado insha Allah isku soo laabanayna daboolka waa soo saaro u jeedaan waxa dhan burjikadan soo saaray digsiga anoo soo bislaado markuu soo bislaado isku soo laabanayna insha Allah waa soo bislaado asxaabteeda dabka waa ka qaadaynaa waa aragtaan waa soo dajiyay anoo soo qaboobo asxaabteeda biskuudka diyaar waaye cunki waa ujeedaan kor iyo hoos saas waaye kalarkaas waaye hadii brown zaid aa rabtid waa ku sii hayn kartaa dabka laakiin cunka saana loogu talagalay saana loo sameystaa sokorta saas u tumo oven hadii aa haysanin burjikada waa ku duban kartaa waa idinkaga faa'iideeyay ka faa'iideysta walaalay qaaliga ah assalaamu calaykum waraxmatullahi